kulanti wanaagsan kuna soo dhowaada barnaamijka Tabantaabo oo aan idinku soo gudbino wararka iyo waxqabadka howlgalka kumeelgaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS oo kaashanaya walaalahooda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Qodobada toddobaadkan aan idinku waynana waxaa ka mid ah wafdi heer sare ah oo ka socda Midowga Afrika oo soo gabagabeeyay booqasho xaqiiqo raadina oo ay ku joogeen Soomaaliya. Booliiska Soomaaliyeed ee Hirshabeelle oo la siiyey tababar ku saabsan maaraynta saldhigyada. ciidamada ammaanka Soomaaliya oo Muqdisho ku qabtay tababaro la xiriira xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta rayidka. muwaadiniinta Uganda ee ku sugan Soomaaliya oo iyaguna u dabaaldegay 61 guuradii ka soo wareegtay maalinta xorriyadda dalkooda. iyo dhaqaatiirta ADMIS oo badbaadiyay nolosha hooyo iyo cunugeeda. sanadadii la soo dhaafay waxaa dunida laga dareemay saamaynta arrimaha cimilada. qaar ka mid ah caqabadaha isbeddelka cimilada ayaa horseeday barakaca dadka ee gudaha dalka. Soomaaliya waxay wax badan ka qabatay barakaca dadka oo ka dhashay iska hormaadyada hubaysan iyo masiibooyinka dabiiciga ah oo ay ka mid yihiin macluusha iyo fatahaado ka dhashay roobabka xilliyeedka. haddaba si wax looga qabto caqabadahan, heshiisyada caalamiga ah sida axdiga Kambaale ee 2009 waxay door muhiim ah ka ciyaareen qaabaynta wax ka qabashada dhibaatooyinka bani'aadanimo ee dalka. wafdi heer sare ah oo ka socday Midowga Afrika ayaa dhowaan yimid Soomaaliya si ay u taageeraan dadaalada bani'aadanimo ee qarankeena. wafdiga ayaa waxaa hogaaminayay Danjire Jainaba Janye oo ah madaxa guddi hoosaadka golaha ammaanka iyo nabadda ee Midowga Afrika. wafdigan ayaa waxaa qaabilay taliyaha ciidamada ADMIS Sarreeye Guud Sam Okidin, taliye ku-xigeenka ADMIS iyo taliye ku-xigeenka booliska ADMIS Martin Omuru iyo sidoo kale wakiilo muhiim ah oo dhinaca siyaasadda ah oo ay ka mid yihiin ku-xigeenka ergeyga joogtada ah ee Soomaaliya u qaabilsan Midowga Afrika iyo Yunaka Shaafici Nurala Safara. Danjire Janye ayaa muujisay taageerada Midowga Afrika waxaana ay shaacisay taageero maaliyadeed oo muhiim ah taasoo qayb ka ah dadaalada lagu muujinayo sida ay uga go'an tahay Midowga Afrika ee Soomaaliya inay caawiyaan dadaalada bani'aadanimo. waxaan muujinaynaa dareenkeenna iyo wadajirkeenna annagoo keennay $150,000 oo doolarka Mareykanka ah si aan uga caawino Soomaaliya shaqada iyo adeegyada bani'aadanimo ee loo fidinayo muwaadiniinta. Danjire Janye ayaa salaan sharafeed ka gudoontay ciidamada ADMIS waxaana ay ubax dul saartay taalada xusuusta ee lagu xuso askartii ku dhimatay howlgallada ADMIS ee Soomaaliya. wafdigan ayaa sidoo kale ka qayb galay kulan looga hadlayay amniga. Danjire Janye ayaa waxay ADMIS ku ammaantay inay yihiin ciidamo nabadgacneed oo si weyn u garab istaagay shacabka Soomaaliyeed iyagoo sugay amniga fududeeyeyna in shacabka la gaarsiiyo gargaar bani'aadanimo. waxaana lagu wargeliyey in ADMIS ay sugto amniga wadooyinka xilliyada gargaarka bani'aadanimo loo wada barakacayaasha ku hareeraysan xiryahooda, in ay siiyaan barakacayaasha adeegyada biyagelinta, caafimaadka iyo xataa mararka qaarkood raashinka. wafdiga Midowga Afrika ayaa waxaa u suurto gashay inay la kulmaan wakiilada hay-adaha samafalka ee kala duwan. Danjire Janye ayaa waxay ka mahadnaqday sida ay u heelan yihiin bahwadaagtu. ma jiro garabka weyn ee aad qof siiso oo aan ahayn in aad naftaada u hurto si aad u caawiso. waxaan aaminsannahay in dhammaan dadka halkan jooga ay muujiyeen heerka garab istaagga ee walaalahood Soomaaliyeed iyo dhammaanteenba. wafdiga Midowga Afrika ayaa sidoo kale waxay kulamo isdaba jooga la yeesheen wakiilo ka socday dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya, ururada bulshada rayidka ah iyo hay-adaha samafalka. wadahadalladan muhiimka ah ayaa ujeedadoodu ahayd sidii xal waara loogu heli lahaa colaadaha iyo arrimaha cimilada ee saameeyey dadka Soomaaliyeed.
saraakiil ka tirsan booliiska hirshabeelle ayaa magaalada jowhar uu ugu soo gabagaboobay tababar socday muddo 5 maalmood ah kaasi oo ku saabsanaa ilaalinta bulshada habmaamuuska xarigga iyo waajibaadka kale ee booliiska tababarada noocan oo kalaha ayaa qayb ka ah taageerada admis ee la siiyo tayada ciidamada ammaanka soomaaliya loona hubiyo in geedi socodka kala guurka uu hirgalo si aan kala go' lahayn iyada oo ay sii wadayaan ciidamada amniga soomaaliyeed inay la wareegaan mas-uuliyadda dheeri ah ee amni ayaa waxaa lagama maarmaan ah in la dejiyo nidaamyo iyo hannaan lagu xaqiijinayo nabad waarta iyo amniga dalka iyo guud ahaanba gobolka saddex alifle saynab maya koonte oo ah hogaamiyaha kooxda admis ee tababarka iyo horumarinta ayaa ku nuuxnuucsatay baahida loo qabo tababaro la mid ah kuwan si loo xoojiyo xirfadaha iyo awoodda ciidamada amniga soomaaliya admis ahaan waxaan ku faraxsannahay inaan fulino tababarkan annagoo diiradda saarayna maamulka saldhigyada boolisaynta bulshada xarigga baaritaanada xabsiga iyo qabqabashada xirfadahaas kaliya kama faa'iidaysanayaan ciidanka booliska soomaaliyeed ee waxaa sidoo kale ay faa'iido u leeyihiin bulshada oo dhan tababarka maamulka saldhigga booliska ayaa waxa uu si dheeri ah u xaqiijinayaa amniga bulshada iyadoo saraakiisha boolisku ay helayaan awood ay ku ogaadaan qaababka iyo meelaha ay ka dhacaan faldambeedyadu gaashaanle sare axmed cabdulle madoobe taliye ku-xigeenka saldhigga booliska ee garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar ayaa ka mahad celiyey tababarkan tababarka ka socday 4 maalmood oo ardayda si wanaagsan waxa ugu faa'iideen oo ahay maareynta saldhigyada booliska iyo xalinta khilaafaadka bulshada iyo booliska u dhaxeeya kaasoo aan filayo ardayda inaan si wanaagsan wax ugu fahmeen waxaa tababarka goobjoog ka ahaa madaxa isku xirka booliska admis ee hirshabeelle sb aguta jimton iyo madaxa admis ee arrimaha bulshada iyo isuduwaha kooxda ee qaybta shanaad christopher ariya ka qaybgalayaasha ayaa waxay tababarka ka faa'iideen aqoon ku saabsan nidaamyada iyo hababka lagu hubinayo inay si hufan u shaqeeyaan saldhigyadooda booliska 4 maalmood oo tababar nagu socday sheeg maareynta saldhigga aadan ugu faa'iidnay waxaan rajaynaynaa mar kale sidoo kale inay koorsooyin badan ay noo keenaan waana mahadsan yihiin macallimiinteena admis ayaa ah saaxiib ay ka go-an tahay xaqiijinta in ciidamada ammaanka soomaaliya ay helaan dhammaanba taageerada laga maarmaanka u ah in la dhiso awoodooda loona hantiyo bulsho amni iyo badqabta howlgalka midowda afrika ee kumeel gaarka ah ee soomaaliya ee admis ayaa abaalmarin u sameeyey saraakiisha booliska ee sierra leone ee qaybta ka ah admis kuwaas oo socdaalkoodii shaqo ee soomaaliya uu soo idlaaday taas oo ay ku mutaysteen dadaalada muuqda ee ay ku bixinayaan nabadda iyo amniga soomaaliya sanadkii 2010 ayaa ciidamada sierra leone waxa ay ku biireen ciidamada nabadilaalinta midowda afrika ee soomaaliya waxaana tani ay astaan u ahayd bilowga adeeg hagarla-aaneed oo ay ku bixiyaan howlgalka taliyaha booliska admis hillary saw kanu ayaa saraakiishan ku ammaantay sida wanaagsan ay uga qayb qaateen geedi socodka nabadda soomaaliya maalintan waxay muhiimad weyn u leedahay booliska admis maadaama ay tahay maalin dib loo milicsado waxqabadkooda loona dabaaldego guulaha la taaban karo ee ay sameeyeen booliska sierra leone intii ay joogeen soomaaliya gaar ahaan jubbaland intii ay socotay munaasabadda biladaha lagu guddoonsiiyey ciidamada booliska ee admis ayaa waxa ay soo bandhigeen xirfado ay ku muujinayeen awooddooda iyo aqoontooda 2018 sierra leone waxay taageero u muujisay howlgalka admis iyadoo keentay soomaaliya ciidanka ugu badan ee booliska admis ee soomaaliya taliyaha booliska admis ayaa waxa uu xusay waxtarkooda tani waa maalin muhiimad gaar ah u leh sierra leone annagoo si midaysan u taageerayno dadaalada nabadeed ee soomaaliya iyada oo ay sii baxayaan qaybta booliska admis ee sierra leone kaalintooda ku aadan ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta saldhigyada jubbaland waa mid la ammaanay dareenkan ayaa waxaa carabka ku dhuftay gaashaanle sare sadiiq maxamed taliyaha booliska gobolka jubbada hoose
labadii sane ee hadda ugu dambeysay waxay noo qabteen wax la taaban karo hadday noqon lahayd xagga dhismaha ciidamada aqoonta ama saraakiisha ama ciidankaba waxaan leeyahay waxaan rajaynaynaa in ay wada shaqaynteena sidaan isi ka sii fiican ay u sii socoto waxaan rajaynaynaa waxqabadka hadda ay qabteen inay hore u sii wadaan 22 sarkaal oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa ugu soo gabagaboobay tababar ku saabsan xuquuqul insaanka iyo ilaalinta rayidka. Tababarkan ayaa waxaa bixinayay quwaro ka socotay kooxda ADMIS ee isku xirka qaybta rayidka ee Jubbaland iyo sidoo kale quwaro ka kala socotay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, xafiiska madaxweynaha iyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. taliye ku-xigeenka ciidamada ADMIS Saraakiil Gaasmaaliyees Nigalabanka ayaa muujiyay sida ay uga go'an tahay howlgalka sidii loo fududeyn lahaa hanaanka kala guurka iyadoo loo marayo tababar iyo la talin. ADMIS remains committed. ADMIS waxaa weli ka go'an fududeynta howlaha awood dhisidda ee looga gol leeyahay in lagu wanaajiyo ilaalinta xuquuqda aadanaha Soomaaliya. tababarkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey qaybta ADMIS ee ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo arrimaha jinsiga. Gloria Jase oo ah sarkaalka sare ee ilaalinta ee ADMIS ayaa sheegtay in tababarkan uu ku soo beegmay waqtigii loo baahnaa. Right now we have ongoing operations. hadda waxaan wadnaa howlgalo socda ciidanka xoogga dalka si buuxda ayay uga qayb qaadanayaan arrintaas marka tani waa siyaadiye. tababarka ayaa diiradda lagu saaray xuquuqda barakacayaasha, caruurta, dumarka iyo dadka ka qaxay guryahooda sababo la xiriira colaadaha hubeysan ama saameynta isbeddelka cimilada. ka qaybgalayaasha tababarka ayaa sheegay in aqoonta ay ka kororsadeen ay wax weyn ka tari doonto taageerada bulshada. saddex digle Sahro Cali Xasan oo ah sarkaal ka tirsan booliska ayaa sidaan ku celcelisay. waa ka faa'iideysanay macallimiin wanaagsan oo tayo leh waxna baray waxaan rajaynayaa mustaqbalka inaan anaguna kula noqono shacabkeena waxna u qabanno sidii waxna loo barayna aan ugu faa'iideyno. halkaan marka imaanaynay waxaan ka baranay cashiro iyo xirfado aan hore aan aqoonin taasna waxaan jecelnahay inaan hadda aan ku dabaqno aan aaga faa'iideyno dadkeenii ka soo tagnay iyo ciidankii iyo dhammaan xarumaha ay markaas qusayso. halkaan waxaan ka faa'iidnay xuquuqda sida loo ilaaliyo xuquuqda caruurta, xuquuqda dumarka iyo dhammaan xuquuqda aadanaha. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay mudnaan siisaa tababarada noocan oo kale ah si loo hubiyo in qaybaha kala duwan ee alaamaha amnigu ay awood buuxda u yeeshaan inay gudan karaan waajibaadkooda cusub ee qaybta ka ah qorshaha kala guurka ee Soomaaliya. ciidamada Nigeria ee ka howlgala Soomaaliya ayaa waxay xuseen sanad guuradii 63aad ee ka soo wareegtay xornimada dalkooda ee 1 Oktoobar. Nigeria ayaa waxay ka mid tahay wadamada booliskoodu ay qaybta ka yihiin howlgalka ADMIS. Happy Independence Nigeria! intii uu socday dabaaldegan maalinta madaxbannaanida Nigeria ayaa taliyaha ciidanka ADMIS Saraakiil Guud Sam Okodin uu ka mahadceliyey waxtarka Nigeria ee daafaha qaaradda Afrika. Nigeria, as we know, has made a lot of contributions. Nigeria waxay tiir nabadeed u ahayd Afrika tan iyo markii xorriyaddeeda ay heshay 1960. Let this be the beginning of peace, unity and progress amongst you, my children. taliyaha ciidamada ADMIS Saraakiil Guud Sam Okodin ayaa si weyn uga hadashay sida ay Nigeria ugu heelan tahay in la hantiyo nabadda Soomaaliya. Nigeria contributed to the stabilization of Somalia. nafhurnimada Nigeria waxay dhabaha u xaartay nabadda iyo horumarka Soomaaliya. dadaalkooda iyo geesinimadooda ayaa sabab u ah inaan si wada jira u xusno maalintan xorriyadda.
taliyaha booliska admis Hillary Saukano ayaa iyaduna bogaadisay waxtarka ciidamada Nigeria ee ku sugan Soomaaliya. I want to thank the Nigerian contingent. waad ku mahadsantihiin ciidamada Nigeria dadaalka hagar la'aanta ah ee aad ku fulinaysaan waajibaadka admis ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka federaalka. ciidamada nabad ilaalinta ee Nigeria ayaa hidahooda dhaqameed ku soo bandhigay heeso, qobka ciyaar iyo riwaayado. munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada admis Saraakiil Peter Kimani iyo mas'uuliyiin kale. magaalada Muqdisho ayay ciidamada nabad ilaalinta Uganda ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee admis isugu soo baxeen si ay ugu dabaaldegaan sanad guuradii 61aad ee xorriyadda dalkooda. munaasabadan diblomaasiyadeed ayaa waxaa martigeliyay danjire Sam Triamuka oo soo dhoweeyey marti sharafta. waxaa goobjoog ka ah wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya danjire Maxamed Al-Amiin Sayf iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac. martida lagu casuumay ayaa waxaa ka mid ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Uganda John Mulimba iyo wakiilo ka socday qaramada midoobay, midowga Yurub, Kenya iyo kuwa kale. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa uga mahadceliyay Uganda garab istaagga Soomaaliya ee xilliyadii ugu adkaa xaaladda dalka. Your support has enabled us to develop, albeit still needs improvement, the capabilities. taageeradiinna waxay noo suuro gelisay inaan horumarno. inkastoo horumarkaasi uu weli u baahan yahay in la sii xoojiyo awoodda aan si buuxda oo guula ugula dagaalamayno kooxdan halista ah ee argagixisada ah oo aan halista ku hayn oo keliya jiritaanka Soomaaliya iyo bulshadeeda balse sidoo kale halista ku ah jiritaanka gobolka iyo amniga adduunka oo dhan. waxaan filayaa in iyadoo Soomaaliya ay idin kaashanayso aan sheegi doono sheekada guusha waddanka Soomaaliya oo raggiisa iyo dumarkiisa iyagoo kaashanaya walaalahooda gobolka ay ugu dambeyntii guul ka gaarayaan cadowgan halista badan. John Mulimba wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Uganda ayaa hoosta ka xariiqay xiriirkan aan la goyn karin ee Uganda ay la leedahay Soomaaliya iyo sida ay uga go'an tahay in la helo gobol isu waafaqsan oo xasiloon. Uganda remains an ardent supporter for strengthening the regional. Uganda waxay sii wadi doontaa taageerada xooggan ee ay siinayso ururada gobolka sida midowga Afrika, ururka dhaqaalaha bariga Afrika iyo ururada kale. waxaan si xooggan u taageeraynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dadaalada ay hogaaminayso dowladda Soomaaliya ee lagula dagaalamayo argagixisada. Uganda ayaa ah dalkii ugu horreeyay ee ciidamo u soo dira Soomaaliya sanadkii 2007. madaxa admis iyo wakiilka midowga Afrika danjire Sayf ayaa bogaadiyey sida Uganda ay uga go'an tahay inay nabad waarta ka dhalato Soomaaliya. munaasabadda kadib ayaa waxaa si rasmi ah loo furay dhismaha safaaradda Uganda. Uganda oo xornimadeeda ka qaadatay gumaystaha sanadkii 1962 waxa ay sii wadaa inay muujiso taageero firfircoon oo ay u fidinayso nabadda iyo iskaashiga gobolka bariga Afrika iyo dibaddiisa. So a lot of these stakeholders have different ways of communicating. si kor loogu qaado doorkooda muhiimka ah ee jihaynta aragtida dadweynaha, saraakiisha warfaafinta dadweynaha ee howlgalka kumeel gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee admis ayaa qaatay tababar xooggan oo ku saabsan isgaarsiinta istiraatiijiga ah. 21 sarkaal oo ka tirsan admis oo ay ku jiraan militariga, booliska iyo qaybaha rayidka ayaa muddo 2 maalmood ah tababar u socday diiradda ku saaray kobcinta xirfadahooda isgaarsiinta. tababarada ayaa waxay ka koobnaayeen istiraatiijiyadda isgaarsiinta ee admis, xiriirka xasaradaha iyo xaaladda warbaahinta dijitaalka ah ee isbeddelka badan. Kormeere Moses Joe oo ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa ku tilmaamay tababarku inuu ahaa mid ku soo beegmay xilligii loo baahnaa.
It is a great privilege for us to have this kind of training now, which will enhance. waxaa sharaf weynii ah inaan ka qayb galo tababarkan oo iga caawin doona inaan si wanaagsan u muujiyo waxqabadka ADMIS. casharada ugu muhiimsan ee aan halkan ka qaadanayo waa muhiimadda isticmaalka baraha bulshada oo aan si wanaagsan u isticmaalno si aan u muujinno howlaha ay qabato ADMIS. saraakiisha ayaa waxaa sidoo kale ay daalacdeen casharo ku saabsan dhinacyada ka qaybgalka dadweynaha, maaraynta kanaalada baraha bulshada iyo xogta nuxurka iyo farshaxanka qorista wararka. saddex alifle Linda Atieno oo ka tirsan qaybta militariga ee ADMIS ayaa sidan ka tiri waxa ay ka kororsatay tababarka. We have acquired a lot of knowledge from this workshop. waxaan aqoon badan ka helnay tababarka, taas oo naga caawin doonta in aan hubinno howlaha qaybaheena in ay si aad ah uga muuqdaan indhaha shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka. tababarkan ayaa waxaa aad uga mahadceliyey saraakiisha ka qayb gashay. xirfadooda cusub waxay noqon doonaan kuwo wax ku ool u ah adeegyada howlgalka ADMIS iyo hadafka howlgalka ee ah in nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo Soomaaliya. dhakhaatiirta cisbitaalka heerka labaad ee ADMIS ee magaalada Dobley ayaa qalliin degdega u sameeyey si ay u badbaadiyaan nolosha haweeney uur lahayd oo foosha ku dhibanayd. isagoo hadlayay qalliinka kadib, taliye ku-xigeenka qaybta labaad ee ADMIS gaashaanle sare Sayf ayaa sheegay in waajibaadka howlgalka ADMIS ay ka mid tahay taageerada ciidamada ee bulshada iyo wacyigelinta bulshada iyo kuwo kale. This level 2 hospital is a very critical facility. cisbitaalka heerka labaad muhiim uma ahan oo keliya ciidamada ADMIS iyo xarumahooda, laakiin wuxuu door muhiima ka qaataa daryeelka caafimaad ay helaan bulshada deegaanka. Sacdiye Maxamed ayaa uga mahadcelisay dhakhaatiirta oo aan nafteeda oo keliya badbaadin balse sidoo kale badbaadiyey tii cunugeeda. xanuunkayguna markii hore xagaha ay barareen la dhowr bilood bay xanuunayeen. xamar baa laga qaadal baa laga soo jiray. tii kale haddana faraha ay madoobaadeen. haddana in halkanaan imid ilmo caloosheeda galay aadan ugu rafaaday halkan lay keenay. ilmihii laga soo bixiyey. haween baa la ii qabtay. isbitaalka hadda aan dib u soo laabto un adugu hadda adi bil 2 bilood meelahaas unbaa hadda ayaan ku jira kolba mid kol ku soo noqonay. ka weyn baa markii hore ayaa la igeeyey marka waxay dhacdo kama qarnaa halkan ii soo gudbiyeen. maya qarshaad lagama qaadin, bilaash laygu adeegay. guusha dhalmada kadib, Sacdiyo si joogto ah ayay u soo kabanaysay. gaashaanle Ruud Omedi, sarkaalka arrimaha jinsiga ee qaybta labaad ee ADMIS, ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay horumarkan. As the gender office, sector 2, we have been in the forefront in improving the social lives of women within the sector. aniga oo ah sarkaalka arrimaha jinsiga ee qaybta labaad ee ADMIS, waxaan safka hore uga jirnay horumarinta nolosha bulshada ee weliba dumarka ku nool qaybta labaad. waxaan u shaqaynay oo aan daryeelnay Sacdiya laga soo bilaabo xilligii uurkeedii ilaa ay ka umushay cunugeeda hadda 2 bilood jirka ah. waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo taliyaha qaybta iyo saraakiisha askarta ah ee ku jira saldhigan taageeradooda ku aadan horumarinta nolosha bukaanka. isbitaalka heerka labaad ee Dobley keliya laguma daweeyo bukaanada ka soo jeeda deegaanka, balse sidoo kale waxa uu la taliyaa shaqaalaha caafimaadka Soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee Dobley. intaasna waxaa noogu dhammaaday barnaamijkeennii 10 taabo. tan iyo intaynu mar kale dib ugu kulmi doonno barnaamijkeennan mid la mid ah, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.